بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلما وصلوا وادي حنين قابلهم العدو بنبل كالمطر أحبتي في الله waxaanu ku soo jirnay kitaabkeeni khulaasatu nuuri lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin waxaan soo gaarnay darsigii 6aad ee kitaabkeenna waxaa dhexda inoo maraysay ghaswadii la dhihi jiray ghaswatu xunaynin lambar 4 baan maraynay falamaa wasaluu muslimiintii markay gaareen waadi xunaynin xunayn togiisii iyo waadigiisii markay gaareen qaabalahum waxaa soo qaabilay alcaduwu cadowgii baa la soo qaabilay binablin leebab leeb waa la yaqaanaa leeb dheh ama gamuun dheh qoloba sibay dhahdaa gamuun ayay la soo qaabileen ama leebab fasirka sheekh hoos uu ku fasira uu leeyahay sigaaru lxijaarati ow kibaaruhaa waa khata weeye dhagxaan yaryar weeye ama dhagxaan waaweyn waxaas uu ku fasiray sax ma ahan waa khalad weeye binablin leeb baa laga wadaa ama gamuun kalmatari sidii roobkii oo kale saxaabadii oo aada u fara badan oo yaacayo aaminsan maalinkaas inaan la jebinaynin unbaa intay gaaladii u galeen muxuu ahaaye jidgooyo iyagoon iska jirinin leeb unbaa roob oo kale looga soo dhigay wa kaana wuxuu ahaa cadowgaasi mustatiran mid isku qariyey fii shicaabi alwaadi waadiga goshiisii buu isku qariyey iyo wa madaayiqihi meelihiisa ciriiriga ah meelihii ciriiriga ahayd iyo waadiga geesihiisa hareerihiisii geedihii ahaabay isku qariyeen muslimiintu yaacayoba maanta waxa idin hor istaagi kara lan nuqlaba alyowma min qilad ku hayo unbaa leeb roobka looga soo dhigay inta badanna waxaa hor socday dad markaas soo islaamay oo weli aan bislaanin raggii muhaajiriinta iyo xaggaa ka yimid way yaro dambeeyeen marka leeb unbaa roob looga dhigay kadibna waa lasoo cararay gaaladan waxay ku qarsanaayeen fii shicaabi alwaadi waadiga togiis yacni toga goshiisa gol waxaa la yihahdaa meelaha geedaha badan ee waadiga geesaskiisiba hadda laga wada iyo wa madaayiqihi meelihiis ciriiriga ah waa meelaha loo galo dadka marka lala dagaalayo meelihii ciriiriga ahayd wadada ciriiri ka ahayd ama luuqluuqyadii koonokoonii baa loo galay faduhisha almuslimuuna muslimiintii way wareereen wanhazamuu wayna jabeen way carareen baa laga wadaa oo markii leebkii roob oo kale looga dhigay cagtay wax ka dayeen waana imtixaano waxaa la tusayay hadalkii ah lan nuqlaba alyowma min qila id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay'a wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat huma wallaytum mudbiriin ilahi wuxuu leeyahay waad jeesateen idinku cararay wathabat wanhazamuu way jabeen bilaawgii hore way ogow wathabata arasuulu sala allahu calayh wasalam nabigeeba wuu sugnaaday maca qaliilin in yar oo min asxaabihi asxaabtiis ka mid isagoo la joogo dadkii cararay nabiga kuma jirin calayhi salaatu wasalaam nabigu wuu sugnaa isagoo dhahayo ana nabiyu laa kadib ana ibnu cabdilmualib isagoo dhahayo isagoo ismuujinayo ani nabi ilaahay baan nahay beentayna ma ahan anigu ina cabdimualib baan nahay dhahayo ayuu nabiga sal ll ly slam sugnaaday adeerkii baa nabiga cabaas baa wuxuu ku yidhi war cabaasow dhawaaq ansaar u yeer buu yidhi kadibna cabaas baa ansaar u dhawaaqay markaasay hal mar soo gadoomeen sidii muxuu ahaaye xayawaanka markuu weylo xo kale u soo laabta kadibna nabigay difaaceen ilaa guul la gaaray ama gaaladu 3 bay u qaybsameen qaar daa'if bay aadeen qaarna meel yihahda nakhlay aadeen qaarna muxuu ahaaye meel yihahda awtaas oo waadi reer hawaasin aan gaari doono duulaan lagu qaadi doono u carareen nabiga sal lla ly slam wuu sugnaado geesi waa nabigu maca qaliilin in yar oo min asxaabihi saaxiibadiisi iyo asxaabtiis ka mid u nabiga la nagaaday minhum geesiyaalkaas nabiga la joogay waxaa ka mid ahaa abubakr libaax buu ahay ogow markuu qur-aanka akhrinayo oynayo dhankaas maskiin buu ahaa aada u oohin badan laakiin markii dagaala gaaraana libaax buu ahay ogow wa cumar baa ka mid ahaa taqaanaa wa caliyun cali bn abi aalib waalcabaasu cabaasu bnu cabdilmualib oo adeerkii aha nabigu
iyo Abu Sufyaan ibn al-Harith oo ahaa ibnu cammi rasuul sallallahu alayhi wasallam nabiga adeerkiisa wiilu dhalay. Abu Sufyaan kani Abu Sufyaan ibn Harb oo dagaalyahanka ama oo nabiga sodonkiisa ama Abu Sufyaan ibn al-Harith baa la yiraahdaa kan nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkii baa dhalay oo ilma adeer bay ahay. fasaaxa waxaa qayliyay al-Cabbaas Cabbaas baa qayliyay markuu nabiga amray weeye bi'acla sawtihi codkiisa meesha ugu dheer buu ku dhawaaqay oo wuxuu yiri yaa asxaaba bay'ati ridwaan bay'atu ridwaan dadkii saaxiibadiisa ahaayow maxaa idinku dhacay ballantii nabiga aan la galnay aaway war maxaa loo cararay faqaalat al-ansaaru ansaar waxay tiri labbayka labbayka waa ku ajiibnay warajacuu way soo laabteen ila rasuuli sallallahu alayhi wasallam nabiga allay ku soo laabteen si ay u difaacaan. dabadeedna wuxuu ku yidhi faanzala allaahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala sakiinatahu xasiloonidiisuu ku soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisuu ku soo dejiyey inuu xasilo wa cala almu'miniina mu'miniintiina ilaahay xasilooni buu ku soo dejiyey. wa anzala eebba wuxuu soo dejiyey junuudan ciidamo junuudaasoo lam yarowha aynan arkaynin dadkan muslimiinta ciidamo aynan arkaynin oo malaa'iga buu ilaahay soo dejiyey. faxamaluu muslimiintii way weerareen oo way ku rogaal celiyeen calaa acdaa'ihim cadowgoodii bay ku rogaal celiyeen oo weerar bay ku qaadeen. wa qaataluuhum gaaladii bay la dagaalameen qitaalan dagaalan shadiidan oo daran xataa hazamuuhum ilaa ay jebiyeen way jebiyeen gaalada ilaa la jebiyo muslimiin weyraxday oo nabi u dhawaaqay yaa karayo naftay garab dhigeen. faxamaluu muslimiinta way weerareen calaa acdaa'ihim cadowgoodii oo meesha joogay Xunayn ayay weerar ku qaadeen. wa qaataluu muslimiinta way la dagaalameen hum cadowgii gaalada ahaa qitaalan dagaal shadiidan aad u adag dagaal daran bay la galeen. nimanka lala dagaalamaya waa niman adag ogow muslimiintii ahaa muxuu ahaaye 10,000 oo ahlu Madiina ah iyo 2,000 oo dadkii soo islaamay iyo 80 mushrikiin oo iyaguna bal howsha meeshay ku dambaysa fiiriya lahaa intaas dadkii ahaabay gaaladan iska reebayaan la dagaalamay xataa hazamuuhum ilaa ay muslimiintii gaaladii jabiyeen buu dagaalkii socday. wa tabicahum waxaa raacay gaaladii almuslimuuna muslimiintii baa gaaladii ceersadoo raacay yaqtuluuna xaalay muslimiintu laynayaan gaaladii wayasiruuna xaala ay qafaalanayaan. gaalada hadday carartay waa la daba dhigtay muslimiintii baa daba dhigtay iyagoo dilahayo oo biraynayo iyo koodii nool qafaalanayo gacan ku dhigayo way adoonsanayeen macna. wa aslama waxaa soo islaamay kathiirun in badan oo min almushrikiina gaaladii ah mushrikiintii ah alladiina mushrikiintaasoo kaanuu ahaayeen maca almuslimiina muslimiinta la jirkooda fii haadihi alghaswati duulaankan oo kane dhexdiisii bay ku soo islaameen. 80 mushrikiina inay muslimiinta la socotay baan horey u soo marnay 80kii in badanoo ka mid a baa soo islaamay. goormay islaameen lamaa ra-ow markay gaaladan ama mushrikiintan arkeen cinaayat allaahi eebba daryeelidiisa bilmuslimiina muslimiinta uu daryeelay. waxay islaameen kolley nimanka reer Hawaasin la yiraahdo ama nimanka la yiraahdo Xunayn meesha kuwa degan oo reer Banu Thaqiif reer Hawaasin la yiraahdo niman loo geli kara ma niman balaayo weeye ee muslimiinta waa la soo jabin doonaa kadibna gaaladiina isaga laabanaysaan oo iska ahaanaysaan bay islaahay. markay arkeen nimankii indhagaha lagu dhuftay oo ilaahay ciidamo aan la arkaynin uu soo dejiyo nimankii cagaha ay wax ka dayeen wax la dilay iyo wax la qafaasho laga dhigay yaa waxay dhaheen muslimiintan dad ilaahay u heelinayo weeye waa inaad islaamtaan wa ilaa waalidin cuni idinkana sidaasay sameeyeen. darsi weyn baa laga qaadanayo sheekh leeyahay muslimiinta dagaalkan ay galeen ghaswatu Xunayn oo waxaa waajiba ciidamada muslimiintu inay ahaadaan kuwa ujeedadooda ay tahay islaamka u gargaaridiisa iyo islaamka difaacidiisa qalbi khaalisan ay la yimaadaan iyo iimaan saadiqa iyo caqiida sugan wa ilaa fashal baa dhici iyo lugo iyo balaayaa dhici buu leeyahay. marka qof markuu dagaalamayo litakuuna kalimatullaahi hiya alculya waa inuu dagaalamo lianna waxaad noqon doonta lama yaqaan adigu marna waa lagaa reynayaa
watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas marna waad guulaysanaysaa marna waa lagaa guulaysanaya. marka kibirka iyo iscajabintu dhibaataday leedahay ayuu tilmaamayaayo in aadan ku kadsoomin ciidan badan baan heystaa iyo muxuu ahaaye anigu hub baan heystaa iyo aadan ku kadsoomin. halis wey. الدرس الخامس والثلاثون درسiga 35aad غزوة طائف. طائف duulaan keeda. طائف duulaan madax banaan ma ahayn ee ragga hadda la jebiyey oo muxuu ahaay dhigaha lagu dhuftay qaar ka mid ah طائف u cararay marka waa laga daba tagay. saara rasuulu sala allahu calayhi wasalam nabiga eebba wuu socday ila طائف meesha lira طائف buu aaday nabi sal ly slam limuxaarabati man dad inuu la dagaalamo fara cararay ilayha طائف u cararay inuu ka daba tago uu la dagaalamo oo min alacdaa'i cadowye ah yowma xunaynin xunayn maalinkiisii aan hadda soo marnayn cararay xoogaa gaalahoo cararay maalinka xunaynna cararay طائفna degay oo halkaa iyo طائف isku aruursaday oo halkaa u cararay buu nabiga ka daba tagay. falamaa wasala markuu gaaray hunaaka halkaa oo طائف ah wajada nabigu wuxuu helay alacdaa'a cadowyadii qad taxasanuu iyagoo dhufeys samaystay qad taxasanuu iyagoo ka dhufeys yeeshay biطائف طائف meesha la yidhaahdo wa macahum la jirkoodana uu yahay quutu sanatin hal sana quudkeeda. waxay samaysteen dhufeysyo aada iyo aada u adag dhismayaal aad u adag bay galeen waxayna samaysteen hal sana raashinka la cuni lahaa. subxaan allah. baatil bay ku dagaalamayaan intaasoo dadaalana ku bixinayaan. marka qofka haddii labadaas arrimood uu isku helo waxaa weye in laga guulaysto aad bay u adkaanaysaa. qofka hadduu haysto cadowgaada ah ciidan ku filanna u haysto dhufeys iyo meeluu ku gabadana u haysto gaajana aynan haynin weligaa ciidan gaajooday ma dagaalama iska ilaali. ciidanka inuu horumar gaaro haddaad doonayso waa in xagga coloosha laga ilaaliyo. nin gaajoon dagaalami maayo. hal sana in ku filan bay meel u dhigeen oo raashina. marka wax cararay malaha meel loo cararay malaha meel walba laga soo kiciyey waxay dhahan bes wey marka meeshan waa inaad ku dhimataan. nimankii oo dhufeys ka yeeshay طائف oo hal sana waxay cuni lahayn haystuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u tagay. falamaa ra-ow markay gaaladii arkeen almuslimiina muslimiintii markay arkeen oo weerar soo qamaamahayo ramow hum waxay ku tuureen binnabli leebab bay ku tuureen. ramow gaaladii waxay tuureen hum muslimiinta waxay ku soo tuureen binnabli leeb ramyan tuurid ama ramyan tuurid shadiidan aada u daran. fajaraxuu way dhaawaceen kathiiran in badan oo minhum muslimiinta ka mid ah wa qataluu waxayna dileen 12 rajulan 12 oo muslimiina bay dileen. lianna nin dhufeys ku jiro iyo nin bannaan taagan ma dagaalami karaan. nin muxuu ahay aan raashin wadanin oo garab rarata ah iyo nin deegaan oo irsaaqadiisa hal sana u cuni lahaa haysto ma dagaalami karaan. muslimiintii midda kale ciidan baday bay ahaayeeno muxuu ahaaye waxaa laga dhaawacay dad badan. dadka la dhaawacay waxaa ka mid ahaa abuu sufyaan ibnu xarbin ishaa laga soo riday il baa laga fujiyey. abuu sufyaan oo nabiga sodogiis ahaa oo soo islaamay sanadkii 8 soo marnay sanadkii nabi makuu qabsanayay ayuu soo islaamay. abuu sufyaan waa soo marnay man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin waa soo marnay. il bay ka soo tuureen dad badanna way dhaawaceen. faramaahum rasuulu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga eebba wuxuu ku tuuray bilmanjaniiqi laamcigaaleed. manjaniiqu nukleerka xilligaas jiray buu xilligaas hubka la isticmaalo midka ugu khatarsan buu manjaniiqu. laamcigaaleed baa la yidhaahdaa geed laan jilicsan oo laabmayso ayaa la soo goon laba dhinac laga soo goon madaxana waa laga jari laan dheer oo jilicsan hoosna waa laga jari. madaxa marka waxaa loogu samaynayaa geedkaasi dheer shabaq baa loo samaynayaa dhagxaan iyo laga buuxiyo wax burburiyo. madaafiic baa laga buuxin ilaa xilligaas madaafiicdu dhagxaan bay ahayd. laantaas marka madaxeeda xarkaa lagu xirxiri inta dabada dhulka loo qotomiyo yaa la soo qalloocin. dhowr ruuxoo xoog le baa isla qaban way soo qalloocinan xoog baa loo soo jiidi. markii afkeeda dhulku u imaado yaa shabaqii loo sameeyey baa dhagxaan laga buuxin hal maraa la siidaan. marka degeed xoog loo soo qalloociyey oo la fasaxo la sii daayey
wixii ku jiro dhagxaana waa guryihii dekan ka dhigay marka gaalada guryaha ku jireen ayaa lagu duduminay dudumin baa lagu sameynay marka taangiye ahayano wax walba hadda gaalada isticmaasho muslimiinta ugu horeeyo muslimiinta qish ay ka qaateen marka xilligaas gaalada waxaas ma garanaynin baalkaas dhagxaanta iyo laga buuxiyo waxyaabaha muxuu ahaaye burburinaya guryaha ayaa hal mar lagu tuuray markaas guriga ay ku jireen ayuu dhulka dhigi wixii ku jireen oo ku baaba'ay kadib way ka cararaan manjaniiqu marka geedkaas weeye laamcigaaleed bay Soomaalideena ku fasiri jireen ilaahay baa garanay waa geed jilicsan oo la qabanayo sida la yeelayo inta geedka labada dhinac laga jaro ayaa madax shabaq loogu sameeynaya dambiil oo kala kadib dhagxaan weyn baa laga buuxinaya geedkii marka waa la soo laabay xoog ilaan geedka ma laamayo xoog baa lagu soo laabaya kadib baa la siidaynaya hal mar buu geedkii haadaya dhagxaantii wuxuu ku jiro dhan ayaa duulahayo meel aan gacan wax lagu gaarsiin karin buu tagahay manjaniiqu marka waa geedkaas waxaasarahum waxaa hareereeyey nabiga sal ll ly slam baa gaaladii hareereeyey 18 yowman 18 maalmood ayuu dul deganaa ilaan looma geli kare uma tarakahum nabigu isaga tagay fii xusuunihim iyagoo dhufaysyadooda ku jiro wuxuuna yidhi ilaahu soo hanuuni ree thaqiif iina keen iyagoo muslimiin ah wuu isaga tagay nabiga jecraanu soo aaday si khaniimadii loo qaybsado waa inuu darsiga dambe berri hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu